Afrika ha noolaato, Afrika ha noolaato, Afrika ha noolaato, Afrika ha israacdo, qoomiyada jareerweyne ha noolaadaano, qoomiya jareerweyne ha israacaano, baled iyo baadiye meeshii ay joogaan. Anigoo ku hadlaya magaca malaaqa qoomiyada jareerweyne degan degmada Mahaday Weyne, gaar ahaan kacaanka meesha loo yaqaano, taasoo ay u bixiyeen micnaha xiliyadii Maxamed Siyaad Barre loo bixiyey, balse ereygaasoo ah kacaan micnaha wixii lagu kacay aan la ogeyn iyo wixii loo socdo. mawduuca waxaan u fadhinaa maanta asalka jareerka meeshuu ka soo faracmay, taasoo la dhumiyey oo la baabi'iyey. afar qodob ama afar eray aan rabnaa inaan ka hadalno. afarta qodob waxaa ka mid ah, waxaan ka hadlaynaa isirka qoomiyada jareerweyne. isir waxaa la yidhahdaa meesha qof kasoo faracmay, aadanaha ama qofka bini aadanka ah meesha kasoo faracmeen, ama qoomiyada jareerweyne meesha kasoo farcantay waaye. isir waxaa la yidhahdaa qofka meeshuu kasoo faracmay. isirka qoomiyada jareerweyne aan ka hadlaynaa. waxaan kaloon ka hadlaynaa ereyga loo yaqaano Bantu, oo inta badan dadka ay aaminsan yihiin, dadka dibadaha ku nool iyo maaragtay dhanka iyo Kismaayo iyo maaragtay jilib ku nool oo ilaa Afrikada xataa ay aaminsan yihiin Bantu wixii laga wado. waxaan kaloon ka hadlaynaa ereyga saddexaad ama qodobka saddexaad, macnaha 4.5 wixii laga wado, oo maanta nidaam oo dawli ah oo lagu soo dhisay, dawladda lagu soo dhisay ama dawli ah, macnaheeda rasmiga aan sheegaynaa. waxaan kaloon ka hadlaynaa qodobka afraad, xisbiga qoomiyada jareerweyne wixii uu yahay iyo sida uu u yaalo. xisbigaasoo la yidhahdo xisbi dastuur mustaqbal Soomaal. xisbigaasoo ah xisbiga qoomiyada jareerweyne aan ka hadlaynaa qodobka maaragtay afraad. marka waxaan u sheegaynaa qoomiyada jareerweyne markastoo ku nool yihiin email ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo kasii xagga Beledweyne, Buuleburto, maaragtay Khalaafe, Shuuga, dhammaan maaragtay Adu Shabeelle dadka ku nool, saan u bax ilaa iyo maaragtay Ceel Wareegow, Laanta Buuro, Marko Jilib, maaragtay Marko ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo maaragtay Zanguni. waxaan u sheegaynaa qoomiyada jareerweyne ku nool, asalka qoomiyada jareerweyne meesha kasoo farcameen, taasoo la rabo in loo qaato si nadiif ah lana fahmo. maxaa yeelay waxaa badatay dadka ka hadlo nasabka jareerweyne ayagoo aqoon aan u lahayn. waxaan aragnay buwaag badan, buwaagtaasoo ay maalgeliyeen maaragtay Canada, London, Danida, UNESCO, UNICEF, buwaag ay maalgeliyeen oo loo yaqaan cilmiga bulshada, oo looga hadlayo asalka Afrika, taasoo laga hadlay ama buugaas oo lagu qoray si khaldan oo maaragtay nidaamka oo maaragtay maanta ee qofka bini aadanka aan waafaqsaneen. buwaagtaasoo ay maalgeliyeen reer Yurub iyo Asia, dadkaasna ay maalgeliyeen, Carab ay maalgeliyeen, nasabka Afrikana meel looga dhacay. buugaas wuxuu leeyahay dadkoogu waxay kasoo faracmeen Semitic, Nilotic, Bantu iyo Cushitic, saasay leeyihiin. afarta eray la sheegay wixii ay yihiin anaga ma naqaan, balse intuu ilaahna waafajiyay maanta waxaan ka hadlaynaa asalka Afrika meesha kasoo farcantay ama jareerweyne meesha kasoo faracmay. jareerweynaha waaba Afrikana waaba jareerweyne. isirka qoomiyada jareerweyne, asalkii jareerweyne wuxuu kasoo faracmay abuna Aadam ama abka Aadan. sida aad aqoon u leedihiin, aad u ogtihiin, abuna Aadam waa aabihii ugu horeeyay adduunyadan aan dul saarannahay oo lagu uumay waay. abuna Aadam sida diinteena muqadaska ay sheegtay waxaa laga uumay dhoobo la soolay, la dubay ayaa laga uumay ama laga uumi min salsaalin min tiinin, cara la dubay oo dhooba laga uumay abuna Aadam. waatuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay waxaa siri yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إلهي وحي لدتيهو أنغا وحانيغا وحانيغا أنيغا أبوري هل نفكاليات
وخلق منها زوجها نفسد إذا أهد أو نينك أهد نفسد ناك أنك أمي وأبو طحابو ويو أبو طحابو أبونا آدم أما أبك آدم فيرتي سبت حيسا لغا أمي وبص منهما رجالا كثيرا وحان كدقنا نمان بدن ونساء يناغا بدن عن كدقنا هش النف أو نينك أهد جوهرت واي مركا نفسد سيدة من نفس واحدة جوهرت واي نفسد الشيء وجوهرت جوهرتنا وجوهر واي جوهر مقع كلمة له وحوليها جوهر ليرا يا من نفس واحدة كتمت معناها جوهر مقع إذا زي كان دنبو أو نبضونا خمي جرروين سياسيين تجرروين أي ليهن مقع وبحنا دكمة جوهر ليرا هذا مقع كلولو مقع عاب كرمة له شلو قميسنا الدوغي ما أنتنا هندوغينا waxaad noo keenaysiin nabadoonada qowmi jirweyn siyaasiyiinta iska fiiriya adna u darsa gumeysigi shalay soo noo duuga hanoo duugina magac ama ereyga aad la bixis ama la imaans ama lagu keenayo oo boorsada daba socota iska fiiriya jawhar al yiraahdaa waxaana u daliil ah aayadan ya ayuha naasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahida jawharada waa jawhar magac kale oo lagu magacaabi karo male marka qowmi jirweyn waxay ka soo farcanta abuna aadam wuxuu dhalay afar wiil shiis bin aadam qaabil bin aadam haabil bin aadam idris bin aadam idris ilaahay samaawaadku u qaaday qaabilna waa la dilay haabil ibliis oo noqday shiisa farcmay shiis bin aadam wuxuu dhalay ninka la yiraahdo anuushna wuxuu dhalay